السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال وأنا السلامي إن شاء الله تعالى أن هروح نوسو ودني هدي له يراهو أن إنه control panel كاسي جود أن قبلت ككل حجرة أن أي أورورسي أن كهذلنا هوري user accounts وكسو هذا اللين وحيالله إنه كسو هذا اللين وكله وحكم ده programs and features وكسو هذا اللين mid walba fawaa'ideeda device manager waa ka soo hadalnay mid walba waxaan soo taabanay qasadkeeda iyo fawaa'ideeda waxaan kala ka soo hadalnay devices and printers waa ka soo hadalnay maanta insha Allah waxaan taabanaynaa network iyo sharing center network iyo sharing center waa halkan network iyo sharing center markaad tagtid markiiba wuxuu ku siinayaa horta 6 qaybood aan iska idhaaho mar horta ta ugu horeysa wuxuu ku siinayaa networkaaga xaalka uu ku sugan yahay ma private ma mise waa public ku siinayaa oo waa tan halkan waxa ku kala ogaanaysaa hadda kaygu halkan wuxuu joogaa private network buu joogaa halkan kale wuxuu ku siinayaa maxaa ku xidhan tahay anigu kaygu hadda wuxuu ku xidhan yahay wifi ku xidhan yahay haddii ethernet uu ku xidhnaan lahaana RJ45 kaasna uu ku tusi lahaa halkan haddii aad rabtid network kale oo cusub inaad ku xiriirsid waa meeshaad u isticmaali lahayd cilad network hadday kugu timaado talaabooyinkaad meeshaad ugu hor fiirin lahayd oo talaabooyinkaad ka qaadi lahayd halkan uu kaa siinaya haddii aan dib ugu laabto networka privatekiisa inuu networku private iyo public settingkaas waxaad tegi kartaa halkan haddii aad wifi-ka maamulkiisa aad tagtid settingka haddaad tagtid ka soo qaado kale halkan settingka waad ka tegi kartaa all settings waad ka tegi kartaa waxaa kaloo ka tegi kartaa more wifi settings intaad wifi-ka halkan kugu jiraa soo maaha wifi-ka waa kan errorkaas baad ku dhufanaysaa hadda dusha waxa kaga qoran manage wifi connections baa kaga qoran isagaa taabanaysaa kanuu kuu soo saarayaa wifi-kaagii halkan waa kan haddaad rabtid inaad disconnect garaysid laakiin ha disconnect garayn waxaad tagtaa more wifi settingka tag ka markaad tagtid Allahu musta'an amma tasifuun wuxuu ku soo saarayaa settingkan uu ku soo saarayaa network property-gaas aad tegaysaa hadda waa kan markaa aankaygu private buu joogaa public markaad joogtid waad geyn kartaa public iyo private kuna mar walba waxay ku xidhan yihiin xaal meesha aad joogtid gurigaaga haddaad joogtid waa inuu public iyo xafiiskaaga waa inuu private ku ahaadaa meel public haddii aad joogtid waa inuu public ku ahaadaa taa waxaa sababaya public markaad joogtidna information gaar ah computerkaagu la wadaagi karaa network kale iyo computerada kale uu ku xidhan yahay public markaad joogtidna waxyaalihii aad private-ka aad la wareegi jirtay oo dhan wuu ka xidhayaa haddaynu halkaa fiirino aynu tagno Allahu musta'an amma tasifuun haddaynu tagno aynu tagno halkan hadda wifi-ka waa kan ethernet-ki aniga ima xiriirsanaa bluetooth-kaas aniga ima xiriirsanaa intaana waxaad ku maamuli kartaa oo ku ogaan kartaa badanka waa marka hadda kaba soo qaado kale waxaa ku xiriirsanaa ethernet baa ku xiriirsanaa hadduu uu internetku kaa tago halkan aad ka arkaysaa calaamadii oo saaran Allahu musta'an amma tasifuun haddaan dib ugu laabto halkan aan horta tago haddaad tagtid wifi-ka details status buu leeyahay hadda waad aragtaa IPv4 connectivity IPv6 connectivity aniga labadaba internetka waa ku geli karaa 4na waa ku geli karaa 6na waa ku geli karaa adiga kaaga waxaa laga yaabaa 6 IPv6 inuu kuu soo saaro version 6 inuu kuu soo saaro ama IPv4 inuu kuu soo saaro labadaba wuu kuu soo saari karaa media state-ka hadda enable baa kaga ku qoran media state-ka wuxuu sheegayaa network interface card oo hardware inuu active u yahay haddii aad halkan timaado internet problem baad heshay kabacdina waxaad fiirisay media state-ku inuu enable u yahay waxaad ogaanaysaa hardware-ka internetka soo qabto oo NEC ah oo ah network interface card inuu kuu shaqaynayo laakiin wifi-ku uu ka maqan yahay
laakiin hadduu media statusku uu disable uu noqon lahaa markaa inaad hardware problem waad ogaan kartaa waa qiyaas halkaas SSID gaas waxa weeye internetkaaga magaciisa intii saacadood hadir computerkaagu daaranaa speedku wuxuu marayo informationka halkaas kaa siinaya detail waad geli kartaa marka ka bacdina wuxuu ku siinayaa information dheeraada buu ku siinayaa oo hadir physical addresskaaga uu ku siinayaa DHCP enable DHCP ga automatically internetka inaad markaad computerkaaga internetka kusoo xidhid markiiba wuxuu ku siinayaa IP address buu ku siinayaa computerkaaga ku shaqeeya haddii aad menu rabtid inaad ka dhigto adigu hawsha maamushidna waa maamuli kartaa oo halkan haddaad tagtid propertieska haddaad tagtid tag optionkan internet protocol version 4 ka tag waxaad tagtaa properties halkan hadda fiiri wuxuu joogaa IP address wuxuu joogaa automatic menu waad ka dhigi kartaa oo adigu number aad leedahay oo mar walba computerkaagu markaad internet ku xidhid uu tago halkii computerku computerka DHCP gu automatic ka siinayay waa maamuli kartaa DNS ki waa sidan oo kale waa la mid halkan waad ka maamuli kartaa marka intaasu waa intaa haddii aynu tagno adapter setting haddaynu tagno waa inaga soo sheegnay isla halkan haddaad tagtid Allahumma musta'an ama tasifun property haddaad tagtid isla tiibu ku soo saaraya inuu hadeer joognay oo ah inaad maamuli kartid internetkaaga computerkaaga sidoo internetka u galo automatic buu u galaa mise manual buu u galaa oo mar walba IP address gooniya buu computerkaaga ku galaya sharing haddaynu tagno waa kan markii aan ku tusay Allahumma musta'an ama tasifun markii aan ku tusay internetkaygu inuu public uu private uu joogo private-ka wuxuu halkan soo saaray inii network discovery mar haddaan private joogo khadka markiiba uu igu xidhiidhanayaa file iyo print sharing waad samayn karaa informationkaas oo dhanna waa la wadaagi karaa laakiin hadduu public ii joogi lahaa waa kan public haddaan tago uu ka xidhan yahay public haddaan tago internetan anigu ku xidhan mooye iskuma xidhi karo xaggana faylo iyo printero aan anigu la wadaago computer iyo dadka kale mooye automatic isagu lama wadaagi karo waa say muhiim u tahay inaad computerkaaga aad maamushid inuu private setting joogo iyo inuu joogo public setting that's why ay muhiim u tahay wanaga halka tagnay halkan aad tagaysaa internetka wifi-ka meesha laga maamulo more setting ka tag wifi-kiisa waxaad tagtaa halkan wuxuu ku soo saarayaa internetkaaga magaciisa property-giisa tag property-giisa markaad tagtid waa kan gurigaaga markuu ku joogo public marka kalena wuxuu noqonayaa haddaan tago private-na public haddaan tagana wuxuu iska xidhayaa sharing-kii oo dhan Allahumma musta'an ama tasifun stream-kan aynu tagaynaa streamku walaalayaal wuxuu medium stream-kan wuxuu kuu sahlayaa kaba soo qaadalka computerkaaga waxaa ku jira video yaa kuugu jira aad rabtid sawirra aad rabtid haddii aad rabtid sawirrada iyo videoda inaad ku xidhiidhisid guriga TV ku yaallo oo kale ama aad rabtid inaad qof kale oo guriga kula jooga inaad la wadaagtid oo isaguna sharing la samaysid halkan baad ka maamulaysaa oo computerkaaga aad u yeelaysaa marka anigu hadeer waxba cid lama wadaagayo marka Allahumma musta'an ama tasifun intaas walaalayaal waxa weeye si guud network iyo sharing muhiimaduna haddii aad ku cusub tahay dhowr jeer cajada daawo fikir guud baad ka helaysaa ka bacdina fikirka guudi wuxuu ku yeelayaa inaad hadhow ismaamushid haddaan dib ugu laabto control panel-kii haddaan dib ugu laabto applet-keedii mid quseeya network iyo sharing mar haddii networku internetka quseeyo waxaan rabaa internet optionskan inaan tago oo appletka ka mid ah internet optionkan uu sidiisaba Microsoft runtii baaritaan dheer qoto dheer ma samayn oo weli waxay u yeeshay inuu halkan ku jiro ma fahmin leannahu wuxuu quseeyaa kanu sidiisaba internet explorer buu quseeyaa internet explorer la cid isticmaasho hadeer xaala khaasa qof khaas oo isagu wixiisa gooni u maamulayo naadira mooye cid internet explorer isticmaasha adduunka ma jirto internet explorerna Microsoft iyada lafteeda way ka baxday security maaha emailkaaga ma gelin kartid waxa ma gelin kartid marka
taas kan wuxuu quseeyaa internet explorer. haddaad internet explorer weli haysatidna internet explorer ha isticmaalin baan runtii ku dhihi lahaa. haddii si khaasa ay jirtana qofkaas waa qof xariifa weeye oo isagaa og naftiisa. ta kale oo aan hawsha raacinaya waxa weeye allahuma mustacaan ama tasifuun, aynu tagno windows 10 ka windows 10 end of life-kiisa aynu tagno. windows 10 end of life-kiisa Microsoft waxay sheegtay October bisha 10aad 14-keeda windows 10 inay faraha ka qaadayso oo ayna dib dambe security-giisii, amnigiisii, update-kiisii, patching-kii ay ku samayn jirtay oo haddii cillad la helo inay sixi jirtay wixii oo dhan inay faraha ka qaadayso oo ay bahalkaa badda ku darayso. marka walaalayaal waa inaad la socotaa window 10 haddaad haysatid intaan xilligaa la gaadhin waa inaad update garaysaa oo window 11 aad ku update garaysaa. waa muhiim weeye, waa muhiim weeye, iyada oo markii horeba computerka window uu yahay computer si khaasa loo leeyahay oo in badan oo ka mid ah xaalaadkiisa internalka aan lala socon, haddana inaad tii ku dartid iyaga oo ka baxay inaad adu sii isticmaashid, taas waxay kuu keenaysaa noloshaada jiritaankaaga internetka halis weyn bay u keenaysaa oo aadan malayn karin. marka taasna waa side note weeye, saaha loola socdo. dhammaantiin waan wada salaamayaa khiyaarta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabillahi tawfiiq.